السلام عليكم ورحمة الله. kusoo dhawaada Axlaam Cooking dhamaantiin soo dhawaada. Maanta waxaan sameynayaa keeg yar oo fudud oo diyaarsan, lama flavor ah, liin ah. Halka bogoska ay ku wada qoran tahay sida waxa lagu darayo oo dhan. Waxaa lagu darayaa 3 xabo oo ukun ah, waxaan madibad ku soo shubsaday 3 xabo oo ukunta ahaa. Waxaan kale oo ku darayaa subag. Marka subaga waxa ku qoran inaad ku darto 100 ml. Marka waxa weeyaan adigu waa ilaa 5 qaado. Marka ilaa 5 qaado subag ayaad ku darsaa. Halka waxaan isku soo qooshiyaa ukuntii iyo subagii. Biyahana waxaad ku daraysaa koob haafkii. Adi bakeeri baad ku daraysaa bakeeri. Kadibna waxaan ku daranaa keegii diyaarsana. Kalar qurux badan weeyaan, aad u qurux badan maasha Allah. Tama waxaan soo dhaweynayaa asxaabta cusub ee subscribe noo saaraysa dhamaantiin soo dhawaada kuwii hore noola joogay. Fadlan videogana like saara dhamaantiin aad iyo aad baad mahadsantihiin. Marka waxa ku qoran marka ugu horeysa 30 second ayar u qoosh, kadibna 2 daqiiqo si dhexdhexaad u qoosh, si uu isu dhex galo 2 daqiiqo si fiican u qoosh. Si fiican waa inuu qoostaa 2 daqiiqo. Waad arkaysaanba inuu bubbles yeeshay uu inuu faxay moodisid ama khamira ayaa moodisa. Kadib waxaan soo marsay saliid sanxiga ofinka ayaan gelinayaa. Waxaan ku daayay 5 waxaan ku dayn doonaa 25 daqiiqo ofinka markaan geliyo. Waaniga ka soo wada dhameeyay. Markuu 25 daqiiqo noogu jiray ofinka, waa ka sida quruxda badan noogu soo baxay. Kadib waan soo jarjarayaa. Waaniga soo jarjaray sida quruxda badan bay noogu soo baxay. Soo jileecin weeyaan yani maasha Allah. Kadib waxaan ku darayaa caanaha macaan condensed milk. waa iska din kartaa. Hadaa macaan si rabtana waa ku sii darsan kartaa. Caanaha macaan baan ka darayaa. Markaan caanaha ku soo daray waa sida quruxda badan noogu soo baxay. Dhamaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Fadlan like iyo subscribe.